السلام عليكم. waxaa la wariyaa in nabi ciise calayhi salaam uu maalin maalmaha ka mid ah safar u baxay. markaas buu nin yahuudi ah isagoo safarkiisii ku sii jira wadada ku arkay. markaas buu doonay inuu sii raaco oo uu sii weeshado. markaas buu ku yidhi, yaa rasuulallah, ma ii fasaxaysaa in aan ku raaco oo aan kugula saaxiibo safarkaaga? markaas buu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi, haa, waan kuu ogolahay. weliba cuntadeenna ama sahaydeenna si siman ayaan u wadaagaynaa oo waan isla cunaynaa. yahuudigii ayaa isna ku waafaqay oo ku raacay arrinkaas. kadibna waxay sii wateen safarkooda ilaa ay ka gaajoodeen. markaas bay hoos fadhiisteen geed weyn oo weliba hoos leh, meel biyo mareen ahna dhinacyadiisa ay ka xigaan. mid welibana wuxuu soo bixiyey wuxuu watay oo raashin ah. yahuudiga wuxuu watay 2 xabo oo muufo ah. nabi ciise calayhi salaamna wuxuu watay 1 xabo muufo ah. markaas bay labadoodiba cuneen min 1 muufo, waxaana soo hartay 1 muufo. kadibna nabi ciise ayaa u kacay in uu biyo ka soo cabo biyo mareenka. kadib markii uu soo laabtayna wuxuu waayay muufadii saddexaad. markaasuu ninka ku yidhi, yaa qaatay muufada? yahuudigii ayaa ugu jawaabay, ma ogi qofkii qaatay iyo sidii uu ku dhuuntay. nabi ciise calayhi salaam ayaa isaga aamusay, su'aalna kuma celinin. kadibna waxaa meesha kasii wateen safarkooda. markaasay wadadu ku arkeen nin indhoolo ah. nabi ciise ayaa ninka indhoolaha ah ku yidhi, haddii aan kaa daaweeyey ciladaada oo aan araggaaga kuu soo celiyey, aduna ku shukrinaysaa? ninkii wuxuu yidhi, haa. markaas buu nabi ciise calayhi salaam gacantiisa saaray ninkii indhaha la'aa indhihiisa. kadibna allah subxaanahu wa tacaala ayuu ugu baryay inuu araggiisa u soo celiyo. markaas bay indhihiisa usoo laabteen ilaahay idankiisa. markaasuu nabi ciise calayhi salaam eegay yahuudiga, wuxuuna ku yidhi, allihii indhoolkan caafiyey oo araggiisa u soo celiyey dartiisa yaa qaatay muufadii saddexaad? yahuudigii ayaa yidhi, ma ogiyaa nebiyallah. kadibna safarkooda ayay sii wateen. iyagoo socda ayay arkeen sagaaro. markaas buu nabi ciise calayhi salaam u yeeray. kadibna waa uu dubay sagaaradii. kadibna waa ay wada cuneen isaga iyo yahuudigii. kadib markii ay ka dhammaadeen ama ay ka bogteen cunisteeda, nabi ciise calayhi salaam ayaa lafihii isku keenay. markaasuu gacantiisa kor saaray oo ku yidhi, sidaadi kusoo laabo idanka ilaahay. isla markiiba waa ay soo istaagtay iyadoo ay usoo baxeen hilibkeedii iyo maqaarkiidaba. waxay noqotay sagaaro caadi ah. kadibna wuxuu nabi ciise eegay yahuudigii, wuxuuna ku yidhi, allahii aayadahan iyo mucjisooyinkan ku tusay dartiisa yaa qaatay muufadii saddexaad? ninkii ayaa ku jawaabay, ma ogiyaa nebiyallah. nabi ciise ayaa isaga aamusay. waxayna sii wateen safarkoodii ilaa ay ugu dambeyntii kasoo gaareen oo ay yimaadeen meel webi ah. webigaasuu aada u ballaaran. markaasuu nabi ciise calayhi salaam yahuudigii gacanta ka qabtay oo biyaha kula dul socday. yahuudiguna wuxuu rumaysan waayey, uu aada ola yaabay inuu biyaha ku dul socdo oo uusan ku hafan ilaa ay webiga dhankiisa kale ugu gudbeen. markaasuu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi, waxaan kugu dhaariyey allaha ku tusay mucjisadan in aad runta ii sheegto ee yaa qaatay muufadii saddexaad? yahuudigii ayaa yidhi mar kale, ma ogiyaa nebiyallah. markii ay u gudbeen dhinacii kale ee webiga, nabi ciise calayhi salaam ayaa cantoobe ciida isku keenay. kadibna wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ka baryay inuu u bedelo dahab. markaasay isku bedeshay dahab. markaasuu yahuudigii yaabay oo yidhi, subxaan allah, yaa iskale xirmooyinkan dhan oo dahab ah? markaasuu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi, xirmada koowaad adaa iska leh, tan labaadna anaa iska leh. markaasuu wax yar aamusay. markaasuu yahuudigii yidhi, kan saddexaadna? markaas buu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi, kan saddexaad waxaa iska leh qofkii cunay muufadii saddexaad. markaasuu yahuudigii si degdeg ah ku yidhi, aniga ayaa cunay. markaasuu nabi ciise calayhi salaam ku yidhi, kulli adiga ayaa iska leh. nabi ciise wuxuu sii watay safarkiisa. ninkiina waa uu ka tegay isagoo ku mashquulsan arrinta dahabka oo aada ugu faraxsan, iyo wuxuu helay barwaaqo dahab ah. daqiiqado kadib waxaa ninkii ku soo maray 3 nin oo gaadiid saaran. markay arkeen oo ka ogaadeen waxaasoo dahaba inuu wato,
waa ay soo degeen markaasay ninkii si xun u dileen ilaa ay ka siiyeen. Kadibna dahabkii ayuu dhexdooda ku kala qaybsadeen. Markaas baa mid iyaga ka mid ah mid kale u dhawaaqay oo si hoose ugu yidhi, saaxiibkeena maan dilno, kadibna adi aan saddexda qayb kala qaybsan doonna. Kadib saaxiibkiis ayaa ku yidhi waa fikrad aad u fiican. Markaas bay u waceen saaxiibkoodii saddexaad waxayna isku raaceen in ay u diraan tuulada si uu raashin ugu soo iibiyo. Isaguna waa uu ku raacay mana dareemin dhagarta. Balse isaguba wuxuu ahaa mid iyagiiba ka sii xun. Intuu waddada ku sii jiray ayay naftiisa ugu sheekaysay inuu sun uga soo daro raashinka. Oo markay ku dhintaanna dahabka isaga kaligiis qaato. Markaasuu raashinka sun ugu soo daray oo la soo aaday labadiisa saaxiib. Markii uu saaxiibadiisii soo gaarayna waxay ku dhufteen ama gaarsiiyeen dhowr dhaawac oo halis ah. Isla markiiba meesha ayay naftu kaga baxday. Kadibna labadii nin ayaa u fadhiistay inay cunaan raashinkii uu u keenay saaxiibkoodii ay dileen. Wax yar kadibna suntii ayaa jirkoodii gaartay. Dhulka ayayna ku wada dhaceen iyagoon dhaqaaqba lahayn. Waxayna ka daba tageen saaxiibkooda oo waa ay dhinteen. Markii uu soo laabtay Nabi Ciise calayhi salaam wuxuu arkay 4 meed oo dul saaran dhulka iyo dahabkii oo kaligiis ah. Markaasuu yidhi, sidaas ayay adduunyadu kuu saamaysaa ehelkeeda. Adduunyadu waa meel la sii marayo oo laga gudbayo ee ha isku dhiibina. Haddaba qisadani waxay ka mid tahay qisooyinka Israa'iiliyaadka ah. Innaguna ma xoojinayno mana radinayno balse waxaan dhahaynaa Allahu aclam bisixatiha. Maxaa yeelay nabigeena calayhi salaam wuxuu yidhi qisooyinka ahlul kitaabka ha rumaysanina hana beeninina. Waxay noqon kartaa mid sax ah, waxayna noqon kartaa mid qalad ah. Inagu waxaan halkan uga soo qaadanay inaan ka faa'iideysano. Waxaan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. Haddii aad ka heshay fadlan ha iloobin inaad like saarato oo la wadaagto dadka aad jeceshahay ama asxaabtaada ah. Wixii ra'yi oo ku saabsan qisadan iyo qisooyinka la mid ah noogu soo qor qaybta hoose commentiga. Tani kulanti dambe iyo sidaas in nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.